السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وين سلامي دمان أصحابتا فاميليغا iyo friendskaba aan aad baan ii salaamay maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo Soomaaliya xaaladeeda waa dhaweed go'aan ayaa la gaaray su'aalaha iyo hadii alla kuuriyay iyo ishaag iyo maamul goboleedka go'aan ayay gaareen doorasho in la qabto ayay ku ballameen ilaa iyo haddana ma muuqato doorasho la gaaray waxa waaye ishaag hadda waxay lahaayeen waxaan maqlaayay waxaa la isu yeerayaa hogaamiye kooxda ayaan markaa loo yeerayaa hogaamiye kooxda markaan leeyahay waxa waaye waa maamul goboleedyada hogaamiye kooxda ma dhaamaan marka hadda waxaan maqlaayay waxaa soo gaaray ishaag ninka la yiraahdo ishaag laftagareen iyo ninka Axmed Madoobe marka anigu waxaan dhihi lahay hal la isku taransuro hal la muujiyo Soomaaliya hal loo naxo waddankan waxaan dhihi lahay ninka la yiraahdo Axmed Madoobe iyo 10 sano Axmed Madoobe meeshaan joogaa 12 sano oo hadda ku soo laabanayay marka kursiga dadaada leh lama rabo inuu kaligiis meesha iska taagnaado marka waxaan dhihi lahaa hal isku taransuro doorashada hal la dedejiyo hadda 2 bil ayay lagu qaayay maqlay 60 beri haddana uma muuqato in 2 bil maahan 5 bil xataa lagu qaban karo sida aan u jeedo hadda waayo madaxweynaha gadaal uga dhigan iyo ninka la yiraahdo ishaag iyo Faad Yaasin mar alla markii go'aan la gaaraba gadaal ay uga dhigan yihiin marka anigu ma garan karo madaxweyne waqtigiisa dhamaaday waxa uu hadba u meerinayo hadal cusub waa wareejiyay ra'iisul wasaaruhu ku wareejiyay wuxuu doorasho qabo waana ka ajiibay waana ku guuleystay ra'iisul wasaaruhu ciidamadii waddanka waa ka saaray badbaado qaran doorashadii iyo dalku ishaag iyo wixii jawlki wala dajiyay marka waxa dib u soo celiyay hadda anu ma garan karo oo hadda ay leeyihiin waa dib ayaan u fiireynaa bal haddana oo maamul goboleed hadda lagu yeerayo marka waxaan anu dhihi lahay Soomaali gadaal looma celi karo meeshii way ka tagtay ay joogtay waxa waaye dadka dhan hadda waxa waaye siyaasadda way wada garanayaan marka waxa xun iyo waxa Soomaali waa baratay qabiil hadda wuu dhammaaday waxa waaye isha waxaan rabaa inaan ka gudubnay isha 4.5 waa marka waxaan rabaa in farmaajo uu faraha ka qaado doorashada iyo si loo qaabinayo asugu waa ku fashilmay asaga ninkii la yiraahdo isha Faad Yaasin marka waxaa la rabaa in dadka faraha laga qaado oo musharax soo sharxo musharaxantu waxa weeye waa sheegeen musharaxana ilaahay laakiin shaqo kuma leh waxa weeye su'aalaha wadaya arrinta isaga doorasho gaarsiinaya waddanka wixii qarasha isaga ishaag lagu soo shubayaa marka waa dhammaaday sijiid iyo Soomaali kala fogeysho iyo dagaal anigu waxaan dhihi lahaay anigu hadda cidna mucaaradayn in Soomaali meel isku timaado ayuu ka tashadaan Kenyan diidaya Ethiopia afmaan waxaas Kenya intaasoo Soomaali ayaa ku nool madaxweynaha waxa leeyahay Kenya intaasoo Soomaali ayaa ku nool inta Soomaali joogta xamar ka badan ayaa Kenya ku nool marka cadaadiska baana Kenya laga daayo Kenya wax waaye dagaal waxba tiri maayo qalin ayaa wax tara marka hadda wax magac ciidamada waddanka waa laga saarayaa marka ayadana waxaan leenahay waddankana nooga baxdo waxa waaye anagu hadda Kenya uma baahnin waxaan saari rabnaa ummadaha kale oo hadeertaan ishaag haddii ilaahay ku reeyay ishaag hadda kuwa kale oo meeshan masuuda shaqeeya hadda aan saari marka waxa waaye ciidamada Soomaaliya ayaan ugu filan ciidamada Soomaaliyeed ayaan ugu filan ayaga hadda hana qaaday ayaa waddanka ku filan marka waxaa leeyahay la isku taransuro saaxiibayaalow in la isku taransuro way fiican tahay haddii nin kasta uu yiraahdo anaa ku cishanaya maalin kasta madaxweyne ku cishanaya dee wax soconaya maahan waxaan dhihi lahay ninka la yiraahdo anu hadda waxaan dhihi lahaa waddankan haddii hadda madaxweyne la isku raaco nin cusub in la doorto waayo ninka la yiraahdo isha Cabdiqaasim waa la arkay ninka la yiraahdo isha Shariif waa la arkay xasha sheeg waa la arkay farmaajo hadda waa ka sii daray nin cusub hadda lagu shubo anu hebel dhihi maayo laakiin nin cusub oo wadanaya oo la yaqaan lagu shubo waxa weeye raggii hore dhan waxba ma aysan qaban lacagtay guranayeen
marka sidaas ayaan in leeyahay naxariistuna inay timaado waaye waalo haddii ilaah yidhaahdo in laisku naxariisto waaye marka anigu waxaan dhihi lahay qaabkaas ha la sameeyo marka waxaan dhihi lahay hadda kanaalkan ay ku qoran tahay ii sheeg masar honesty cabdisalaan waa haddee waa in hadda asaartiin scribe iyo leg aan saartiin waayo iyo shark saaxibi ahli soo dhaweey ya waxa waxa buuq ka dhacaya meeshii iyo qaylo waa waaye meeshii hadda wuxuu isku bedelay hadda ii sheeg youtube-ki iyo facebook waxay isku bedeleen meel qabiil meel lagu sheeko looga sheekeeyo qabiil ya qabiil afar la sac waa la istilayaa reebel saas waaye halkaa waag anigu waxaas inaan galma rabo laakiin waa la nimayo ka shaqaysta meesha meel kasta haddaad qabiil geydin waa wareer meesha waxa youtube-yada iyo facebooka iyo diliga ii sheeg iyo snapchat-ka iyo tiktok ka shaqaysta laakiin buuq iyo qaylo ka daaye meeshaan dadaa iskale adigu ma lihiin haddaa meel kasta anaa reebela wax ka soconayn lama arko anigu hadda waan ku cusuba meeshaan laakiin afaaras maba gelaya anigu dee ummadda soomaaliyeed sa ii aragto ayaa noqonaya marka waa kaas leegu waa xaggiina saaxib yaal iyo iskareebka marka aad baan halkan saakay wallahi saakay waa la yaaba markii la yiri ii sheeg ilaa iyo hadda ma isa imaan ninkii la yidhaha ii sheeg dani iyo ninkii iyo qorqor war dani qor ma loo xiraanayaa waxa waaye ii sheeg ummadda soomaaliyeed waa inay ka tashadaan aayahooda shiiq iyo shaab ayaa leenahay waa ognahay hadda siyaasaddu aniga og hadda in siyaasadda aan wada fahamsannahay oo hadda nin kasta oo soomaali ama gabar kasta oo soomaaliya ay hadda siyaasadda ay fahamsantahay qaabka ay siyaasaddu u shaqaynayso haddana in dad gaara lug looga xiraado looma baahna ma fahantiin laga gudbo waa in laga gudbaa wixii aan soo marnay 99 aan soo marnay iyo 2008 in laga gudbo waaye waa in haddii la kuleeyay ii sheeg aayaheen ay ka tashanaa siyaas ayaa anu dhihi lahay marka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu videogan hadduu soo gaaro hala share gareeyo leega hala saaro iskaraab kanaalka lagu qabto hadda hal dhis aad baan idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu nabadiino